madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee waqti xileedkiisu sii idlaanayo Axmed Maxamed Islaam oo maalmihii la soo dhaafay howlo shaqo ku joogay magaalada Nairobi ayaa saaka si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. soo dhaweyntiisa ayaa waxa qayb ka ahaa labada madaxweyne ku xigeen gudoomiyaha baarlamaanka xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo dadweyne aad u tiro badan oo ku soo dhaweeyay madaxweynaha garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. sidoo kale Axmed Madoobe ayaa waxa bartamaha magaalada Kismaayo uu ku soo dhexmaray gaadiid kor ka furan halkaas oo ay ku sugnaayeen boqolaal dadweyne. madaxweynaha Jubbaland oo saxaafadda kula hadlay aqalka martida ayaa sheegay in safarkii ku tagay dalka Kenya uu ahaa mid shaqo halkaasina uu kula kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka ee taageera Soomaaliya isla markaana uu kala hadlay sidii taageerada ay siiyaan Soomaaliya ay u laba jibaari lahaayeen. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaan dadka reer Jubbaland soo dhaweyntii aad u qiimaha badnayd ee aniga iyo asxaabtii la socotay ay u soo dhaweeyeen maanta oo aan ku soo laabanay magaalada Kismaayo. mahadnaq kadib waxaan jiray safar kooban oo aan ku gaaray waddankan deriska nahay Kenya iyadoo intii aan joogay aan kulamo kala duwan la yeeshay qaar ka mid ah beesha caalamka dadka Soomaaliyeed ee degan halkaas oo ay ka mid ah odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo dhalinyarada. guud ahaan aad moodaysa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dareenkoodu inuu isku mid yahay. iyadoo taasi ay jirto madaxweynaha ayaa dhinaca kala soo hadal qaaday arrimaha la xiriira doorashooyinka Jubbaland ku soo foodlay isagoona sheegay in loo baahan yahay in si wada jir ah loogu dadaalo sidii nabadgelyo iyo deganaan ay ugu dhammaan lahaayeen howlaha la xiriira doorashooyinka la gudagalaya ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha isla markaana loogu dambeeyo ayuu yiri guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka oo horay u soo magacaabay Axmed Madoobe isla markaana gacanta ku haya howlaha la xiriira soo xulista xildhibaanada iyo arrimaha doorashooyinka. waxaa bariyan aad uga shidan oo la iska weydiiyay Jubbaland arrinta doorashooyinka oo ah waxa la yiraahdo xadiisu shu'uun saaca. doorashooyinka Jubbaland ama doorashada Jubbaland aan yiraahdo waxay ku dhacaysaa sidii la qorsheeyay iyo muddadii loo qorsheeyay iyadoo habraaca iyo jadwalka doorashadu ay u taalo guddiga doorashooyinka iyaguna ay mas'uul ka yihiin wixii la qabanayo iyo sida wax u soconayaan iyo marxaladaha kala duwan iyo habraaca iyo sida yeelanayso ay guddidu iyagu leeyihiin. dadweynaha reer Jubbaland ayuuna madaxweynaha ugu baaqay inay gacmaha isqabsadaan oo midnimadooda ay adkeeyaan si howlaha la xiriira doorashooyinka aanay qalqal u galin nabadgelyada iyo nolosha dadweynahana ay u noqoto mid wanaagsan. midnimada Jubbaland inay tahay mid muqadas ah una taalo Jubbaland dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba in la xoreeyo deegaanada ka maqan Jubbaland ee gacanta cadawga wali ku jira taasoo kulligood marar badan laga hadlay reer Jubbaland ay yihiin cid ugu horeysa diyaar iyagoo doonaya inay qaataan roolka ugu weyn ee ku leeyihiin. qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu isharxo. doorashada Jubbaland ma aha mid dad gaar ah u kooban cid ku xadidan waa mid qof kasta oo muwaadin ah uu xaq u leeyahay inuu isharxi karayo wax dooran karo la dooran karo laga bilaabo baarlamaanka iyo madaxweynaha waase in uu ilaaliyo qof waliba nidaamka dowladnimo amniga iyo xasiloonida ka jira gobolka. waxaan ku amaanayaa shacabka reer Jubbaland inay yihiin dad iyagu maanta gacantooda kula yimid waxa ay ku jiraan oo ka shaqeeyay oo amniga iyo wada noolaanshaha iyo bulshada wax ka dhaxeeya ay iyagu yihiin wax ka shaqeynay haddii ayna bulshadu ka shaqeynin lama gaareen midaas. isku soo wada duubo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jubbaland ayaana ka biyadiidan soo xulista xildhibaanada ka mid noqonaya kuwa cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland kuwa oo guddiga doorashooyinka ay ku eedeeyeen in ay isticmaalayaan hab ka bannaan dastuurka sida uu qorayo taa oo ay ku sheegeen in 3 qof ay soo xulaan odayaasha dhaqanka taasina ay tahay mid aysan marnaba aqbalin.